walba oo ka mid ah 4 sano ee uu dalku hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ku curanayay saasaan wanaagsan iyo hayaan loogu jiro dawladnimo Soomaaliyeed oo si dhab ah loo soo celiyo waxa si tartiib ah u soo laabanayay adeegyadii dawliga ahaa kaabayaashii dhaqaalaha xiriirkii caalamiga ahaa amniga iyo wax walba oo muhiim u ahaa dawladnimada waxay ahayd 4 sano oo aan lagu xadgudbin dhulkii danta guud iyo hantidii qaranka ma jirin cid gaar ah oo ku takrifali kartay taas beddelkeeda waxaa dibudhis iyo dayactir lagu sameeyay xarumihii danta guud ee ku burburay dagaalada waxay ahayd 4 sano oo dadka naafada ah ee Soomaaliyeed ay heleen dawlad dareensan inay qayb ka yihiin bulshada Soomaaliyeed 30 sano kadib madaxweyne Farmaajo ayaa markii ugu horeysay saxiixay sharciga dhismaha hay'adda naafada qaranka barnaamijkeeni taxanaha ahaa ee 4 sano iyo waxqabadkii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxaynu doorkan si gaar ah ugu soo qaadanaynaa sharciyadii uu qalinka ku duugay madaxweyne farmaajo waxay ahayd 4 sano oo uu dalku yeeshay shuruuc muhiim u ah dawladnimada iyo dibdhiska dalka kuwaas oo saxiixitaankooda ku dhiiraday madaxweyne farmaajo labadii bishii Oktoobar sanadkii 2017 markaasi oo uu bilo kooban xafiiska joogay madaxweyne Farmaajo waxa uu qalinka ku duugay sharciga isgaarsiinta kaas oo ah midkii ugu muddada dheeraa inta la og yahay shuruucda la horgeeyay baarlamaanka Soomaaliya wax ka badan 10 sano ayuu hor yaalay baarlamaanka saxiixitaanka sharciga kadib madaxweyne Farmaajo ayaa ku guuleystay dhismaha hay'adda isgaarsiinta qaranka oo ah mid madax bannaan taas oo iminka leh haykal maamul miisaaniyad gaar ah iyo shaqaale inkasta oo guud ahaan sharciyadu ay muhiim u yihiin dalka haddana bishii Sebtembar sanadkii 2019 waxa la dhihi karaa wuxuu madaxweyne Farmaajo saxiixay sharci Soomaaliya baahi weyn u qabtay waa sharciga dhismaha guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa heer federaal iyo heer dawlad goboleed sharcigan ayaa horseedaya ka hortagga iyo xakamaynta musuqmaasuqa oo dhibaato badan ku haya dawladnimada iyo horumarka dalka bishii December sanadkii 2018 madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa saxiixay sharciga dhismaha hay'adda naafada qaranka ansixinta sharcigan madaxweyne farmaajo ayaa si gaar ah uga codsaday labada aqal ee baarlamaanka maadaama dawladda uu hogaamiyo ay mudnaan gaar ah siinaysay daryeelka dadka naafada ah ee Soomaaliyeed bishii Oktoobar sanadkii 2019 waxay ahayd maalin kale oo guul weyn xambaarsan madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa saxiixay sharciga maamulka dakhliga ee uu saxiixay madaxweyne farmaajo wuxuu muhiim u ahaa dawladnimada waa sharci la jaan qaadaya nidaamka casriga ah ee ururinta dakhliga sidoo kale sharcigan ayaa qayb weyn ka ahaa dhamaystirka hanaanka maamul wanaagga iyo hufnaanta maaliyadeed ee ay dalka ku hogaamisay dawladda madaxweyne farmaajo 8 bisha Febraayo 2020 madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa saxiixay sharciga batroolka dalka sharciga batroolka dalka ee uu saxiixay madaxweyne farmaajo ayaa ku saleysnaa sharciyadii batroolka iyo macdanta dalka dastuurka iyo heshiiska lahaanshaha maamulka iyo wadaagga kheyraadka dabiiciga ah ee lagu saxiixay magaalada Baydhabo bishii Juun 2018 sharciga batroolka wuxuu muhiimad weyn u leeyahay dawladnimada iyo shacabka Soomaaliyeed waa sharci hagaya xuquuqda muwaadiniintu u leeyihiin in looga faa'iideeyo kheyraadka ceegaaga dhulkeena isagoo xayndaab u noqonaya kana ilaalinaya ku takrifalka damaca shisheeye iyo musuqmaasuqa bishii December sanadkii 2019 madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa saxiixay ama meel mariyay laba sharci oo isku lifaaqan waa sharciga maareynta maaliyadda guud iyo sharciga shirkadaha ganacsiga shuruucdan waa kuwa hagaya qorshayaasha dawladda ee dib-u-habaynta dhaqaalaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa sharciga shirkadaha dalka ayaa si gaar ah u dhiirigelinaya ganacsiga shaqo abuurka iyo fursadaha maalgashi ee dalkeena dhowrayana xuquuqda hantiyeed ee muwaadiniinta Soomaaliyeed 22 Juun sanadkii 2020 madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa saxiixay sharciga duulista rayidka dhanka kale madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isla waqtigaasi magacaabay maareeyaha guud ee hay'adda duulista rayidka waxayna noqotay markii ugu horeysay ee ay Soomaaliya yeelato hay'adda duulista rayidka haddii aan leeyno barnaamijkeena kan xiga waxaynu si gaar ah ugu faaqidi doonaa hay'adaha madaxa bannaan iyo golayaasha qaranka ee dhismay 4 sano ee uu dalku hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo